Assalaamu calaykum. Germany ama Deutschland, dhulka farsamada iyo hawsha, dhulka warshadaha iyo wax soo saarka. Barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa macluumaad guud oo ku saabsan dalka Jarmalka, dhinaca waxbarashada, nolosha guud, dhanka taariikhda iyo xaaladihii uu soo maray dalka Jarmalka. Maadaama aan annaka Soomaali ahaan aanu u naqaano magacaas dalka Jarmalka, ku soo dhawaada barnaamijka maanta ku saabsan dalkaasi Jarmalka. Jarmalka waa dowlad ku taala bartamaha qaaradda Yurub, xubinna ka ah ururka Midowga Yurub. Magaceeda rasmiga ah ee loo yaqaano waa Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka, Bundesrepublik Deutschland. Berlin waa magaalada ugu weyn dalka, waana caasimadda, waxaana ku yaal xarumaha dowladda federaalka dhexe. Nidaamka siyaasiga ee ka jira Jarmalka waa mid federaali ah. Jarmalka waxa uu ka kooban yahay 16 gobol oo mid kasta uu leeyahay xukun hooseed federaali ah iyo xukuumad hooseed u gaar ah. Dhinaca xuduudka iyo wadamada deriska la ah, Jarmalku wuxuu ka mid yahay wadamada ugu xuduudka badan qaaradda Yurub. Markii loo fiiriyo dowladaha xuduudka la leh, 9 dowladood ayaa deris la ah Denmark oo dhinaca waqooyi xuduud kala leh koonfurta Switzerland iyo Austria, barigana waxa xuduud kala leh Poland, Jamhuuriyadda Jeega, galbeedkana Faransiiska, Luxembourg, Belgium iyo Holland. Intaas waa 9 dowladood oo xuduudka la leh. Laakiin sidoo kale Jarmalka waxaa dhinaca waqooyi ka saaran badda waqooyi ama badda Baldiqa. Bedka guud ee Jarmalka waa 357,376 kiilomitir square. Waxaa ku nool dalka Jarmalka 81 milyan oo qof. Waa dalka ugu dadka badan Midowga Yurub. Dhanka muhaajiriinta, waa dalka saddexaad ee caalamka oo dhan. Dhinaca dadka u soo hijroonayo, waa dalka saddexaad ugu qaabilka badan caalamka oo dhan muhaajiriinta. Jarmalku wuxuu udub-dhexaad u ahaa imbaradoriyadii lagu magacaabi jiray imbaradoriyadii Roomaanka muqadaska ahayd, inta badan ka talin jirtay qaaradda Yurub, taasoo soo gaartay ilaa 1860. Kadib dagaalkii labaad ee adduunka, dalka waxaa loo kala qaybiyey 2 qaybood: Jarmalka Bari oo khaniimo ahaan loo siiyey Suufiyaadka, iyo Jarmalka Galbeed oo la siiyey xulafadii galbeedka ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Laakiin Jarmalka dib ayuu u midoobay 1990kii. waa markii la riday darbigii Berlin ee dalka kala qaybin jiray. 1957, dowladdii Jarmalka ee galbeed waxay wax ka aas-aastay midowgii xilligaasi loo yaqaanay Suuqa Yurub, oo hadafkiisii koowaad ahaa dhanka dhaqaalaha iyo in dadku isku gudbaan. Laakiin 1993kii ayaa loo bedelay Midowga Yurub ee maanta naqaano. Dowladda Jarmalka ayadoo kor u qaadaysa tallaabooyinka horumarinta shacabkooda iyo hagaajinta heerka nolosha, ay dhistay nidaam caymis heer qarana. Jarmalku xiriiro wanaagsan ayuu la leeyahay wadamada Midowga Yurub iyo iskaashi dhinacyo badan taabanayo. Waxaa lagu tiriyaa dalka Jarmalka wadamada caalamka oo dhan hormuudka u ahaa culumta, caafimaadka, injineerinka, tiknoolajiyadda iyo qalabad casri ah ee kala duwan.